Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Beena Journal. Maalmahan waa la mashquulsanaay. Xanuun yaroo hergabaa iska jiray. Haddana waa soo noqday insha Allah. Qisadii ayaan halkan uga gudagalaynaa biidnillaah. Qiso ka dhacday dalka Masar ayaa maanta ka hadlayaa. Qisadan waa gabar jaamiciyada oo wax baratay oo in muddo ah wiil isjeclaayeen kadibna isguursaday. Markay isguursadeen maxaa dhacay? Maxaase ku dhacay gabadhan? Halkan ayaan ka hadli doonaa insha Allah biidnillaah. Muuqaalkan like saar insha Allah. Haddii aad janaalka ku cusub tahayna subscribe noo saar, gambaleelkana furo biidnillaah. Qisadii ayaan u gudagalaynaa. Qisadan waxay dhacday isbuucii aan soo dhaafnay. Gabadhan waxaa la yiraahdaa Layla Ramadaan. Waxayna u dhalatay dalka Masar. Waxayna ka soo jeedaa gobol la yiraahdo Xilwaan. Gabadhan Layla Ramadaan waxay ahayd gabar ardayada oo in muddo ah wax baranaysay. Intaas muddada ahayd waxay saaxiib la ahayd wiilkaas ay aad isu jeclaayeen. Kadibna wiilkii ayaa isguursadeen. Markay wiilkii isguursadeen ee meel degtay muddo ka bacdi maxaa dhacay? Gabadhan waxa ay la soo baxday weji oona ku garanaynin wiilka guursaday iyo faamiligeeda iyo faamiligii reerka wiilka. Gabadhan in muddo ah ay aad u xanaaqaysay. Wejigeeda ayaa isbeddelayay. Qayli ayaa ka soo hartay gabadhan. Muddo ayay sidaas ahayd. Wiilkii mar walba wuxuu u imaanayay faamiligii gabadha dhaleen. Wuxuu dhahayay gabadhan waxyaabo aan ku arkin ayaan ku arkay. Gabadhiina la hadla. Gabadhii markii mar walba lala hadlo iyadii ayaaba aad u xanaaqsan. Kadib labadii waalid oo faamiligeeda gabadha faamiliga ay ka soo jeedo iyo wiilka faamiligiisa waxay go'aansadeen gabadhan in la geeyo meel quraan saar ah ama sheeqa quraanka dadka saaro in loogu waco. Kadibna waxaa la yiri wiilkii ayaa loo wacay. Gabadhii ayaana gurigii la keenay. Gurigii markii la keenay sheeq ayaa loo wacay. Sheeqi wuxuu yiri gabadhan markii aan fiiriyay xaalkeeda waxaa haayo jiniyo ayaa haayo. Jiniyihii ayaa beddelay gabadhan. Waxaa la sameynayaa waa la xirxirayaa gabadhan. Markii aad loo xirxiro tiir laga soo taago waan garaacayaa. Markaan garaaco gabadhan jiniyaha ayaa ka baxayo. Wadaadkii waxaa lagu dhahay waayahay sidii samey. Wadaadkii wuxuu sameeyay gabadhii ayuu xirxiray. Markuu xirxiray wuxuu soo qaatay ul weyn oo ilwaax camal ah. Ushii ayuu sidoo ugu garaacayo gabadha gabadhii ayaa suuxday. Gabadhii markay suuxday ninkii wadaadka ahaa ayaa wuxuu ku yiri gabadhan jiniyihii ayaa ka baxooyo waa qof suuxsan. Iyada ayaana soo naaxayso. Lacagtii aan idinkula heshiiyay halay siiyo waana baxayaa. Odagii lacagtii ayaa la siiyay. Gabadhii sidii ayayna u suuxsaneed. Ninkii oo sheeqi isku tilmaamayna wuu baxay. Gabadhii ayaa soo naaxi weysay. Hooyadii ayaa dareemo galay oo waxay taday muddadaas gabadhaada maxay u soo naaxi la'da. Gabadhii ayay ka taataabatay qoortii. Gabadhii maba neefsanayso oo mar hore ayay dhimatay. Booliiskii ayaa loo wacay oo Masar. Booliiskii markay imaadeen oo meeshii gabadhii laga furfuray la yimid gabadhii waaba meed oo waxay dhaheen saacado ka hor ayayba meed noqotay. Ninkii sidaas sameeyay oo sheeqi iska dhigay oo gabadhan garaacay waa la xiray waana la soo qabtay waana xiran yahay. Sababtoo u garaacay inuu sheeq yahay inuusan sheeq ahaynin inuu gabadhan awal asaga jeclaa inuusan jeclayn ayaa la baarayaa. Dhacdadaas ayaa isbuucan dhacday. Waxaan qabaa
yaa lagu degdegin dadyoogaha sheeqyaha, waayo meel xun ayay dadka ka garaacaan. haddii meel xun lagaaga dhifto meeshiina adiga dhibaato kaa soo gaarto waa dhib. laga digtoonaado waxaa ka wanaagsan in ilaahay la tala saarto, quraana la isa saaro, adna isa saartid, taasaa ka wanaagsan. insha allah biidni illaah like iska saar biidni illaah insha allah.